كل كبير منه هذين سنحنا الشيخ عمر حسين أو جامع مع العيش إن تاريخ دي سكوا رمى لكن واحد شعلها يقول إن البريقسية طول استاجنو بالتاريخ ذا سيدا يرتو وحوجه وبعدين إن الشيخ عمر حسين أو جامع وحول الشيء الذي نهان حلي كوبيجان سنة دي كل سجال بقول سيدي صدقي وحول كل شيء ميجاكتا وكونفور كحيكتا عاصمة هرقيسة هو يدي حلو أي أحد وحنا يهد والد دداش شيخة ويران أي قرآن كبرتي يران تيسي شيخو وحول جنشري أما وحول المية قرآن يسوق كشرا دادي طبناد حل جاسي وها ويل آد داير شيخو كنتي وحول راعي أما ولا سعودي حر مددي وحرت للسعودي وحي بوغدين إن قبل الشيخ سحاق جامعة لسر أو كم إذا جامعة الدنيا دوقف عوين أيو شيخ وقال يسوق لحية الانشراء وحنو كقرن شديد سنة يكون سجال بقول سجال يكون تركي يسوق أو كوبي لبعض انشراء يسوق برتي أفك عربية ساينس كإسلام كا دين الإسلام كا تفسير كقرآن الكريم كا إسلام مركي والشيخ وحاول لكم من محمود أحمد علي وصول ويجي جامعي جدّا دير وحنو أدري ترينين امتحانه مع النمو يسوق الشيخ عمر صدق صاو باسي إسلام رهان تانا حول قلب الشيخ عمر وحال لقى فايدة أفك عربية وآدو برتي يسبج دين الإسلام سنة يكون سجال بقول أثري اللحن كي وحاول جرسدي نمع حسين محسن أو شيء كوبي طبعا عهورة سجال ويل يلا بحلا سنة يكون سجال بقول سجال اللحن كي وحاول أساسي حسب وحدة الشباب الإسلام أو ككورنا صدق طبعا لليرة حسب كان أو قتلا إنه نسياسات كشقين أو دبينها كشقيو كلا شقيو براروجين تدينته يفهم سين تدينته إسلام شيخو شقوي بدن أيو أقبطي ومدى الصومال لان يجودهان ومدى الصوماليات وحنو كسر شقي شيخ عمر وعاوين لفر يا مدرسة إسكولة بدن أو معمولة النقدي سيبا إسكولة دا أحمد جوري يمرودي تشاه أو يسوق مجاعة إسكول كمرودي تشاه شيخو هولوين أيو كقاطي إن دبلو سعودية مجاعة مرودي تشاه يدو ددوينه يلابين isaguna uu runtii hawshaasi dawladda ka codsaday in iskuulkan loogu magac daro iyadoo oo markii dambana loo aqoonsaday gobolkan aynu hadda joogno Maroodi Jeex taasina runtii sheekha guul weyn ayay u tahay sanadii 1972 sheekha oo madaxa xisb wahdat al-shabaab al-islam ayaa bilaabay inay dib u dhisaan siina weynisiiyaan masjid jaamaca magaalada Hargeysa masjidkan oo aad u yaraa agagaarkiisana xashish buux dhaafiyay hoyna waahay darbi jiifka ayaa sheekhu waxa uu bilaabay inuu jawaan dabada la istaago si dadku uga caawiyaan arrimaha samafalka isla markaana runtii ay la hawlgaleen dadku gacan ay ka siiyeen dhisidda masaajidka aakhirkiina way ku guuleysteen oo ilaahay uu ku guuleeyay hawsha sheekhu dadweynaha Soomaaliland wax badan ayuu uga tagay oo haday noqoto xadii taariikh fara badan dhalinyarta uu guubaabin jiray hadii jeerna waxa uu ku guubaabin jiray arrimaha la xiriira diinta iyo inay ka fogaadaan xumaanta runtii sheekh macallin Umar ka geeyon meeyno hadeen isnaana taariikhdiisa wada sanadii 1980kii sheekhu waxa qaadatay raabidatu caalamul islaami oo ahayd ururkii dunida ugu weyn ee islaamka oo xarintiisu ahayd Saudi Arabia sheekhu waqtigaasi waxa uu diray ururku wadanka Malawi oo runtii wadankaasi xilliga boqolkiiba 40 ay ahaayeen dadku islaam waqtiga waxa uu ka dhisay iskuul iyo masaajid ayuu ka hirgeliyay sheekhu diintana dadka halkaas uu ku bari jiray isagoo boqolaal qof waqtigaasi soo islaamiyay sheekh Umar waxa kale oo la kulmay muddadii uu joogay runtii sheekhu sheekha caanka sheekh Ahmed Didat oo runtii ahaa xaaday waqtiga ay ku kulmeen Malawi runtii fursad weyn bay u ahayd sanadii 1990kii sheekhu waxa uu soo galay wadanka Ingiriiska oo judhiiba dadweynaha Soomaaliyeed wax la qabtay oo dad badan quraanka iyo diinta u dhigay sheekhu waxa uu kamid ahaa gudiyo badan oo arrimaha samafalka bulshada ka shaqeeya sheekhu dad badan ayuu ku daweeyay quraanka sheekh Umar waxa uu kamid yahay dadka farakutiriska ee aqoonta weyn u leh dhinaca diinta islaamka afka carabiga tafsiirka quraanka kariimka
labadii kun iyo shantii waxa uu qoray buugga caanka ah ee albaabka cilmiga dhaxalka oo aad looga wada akhristay meelo badan oo dunida ka mid ah kadib markii uu sheekhu dareemay in baahi weyn loo qabo buuggan. Allah hadaayo sheekha caawa inala jooga كل كبير من التاريخ ديسة انت أصلا سجود مرة دائرة وبشرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.